madax xanuunka xilliga soonka caadi ahaan maalinta koowaad ee bisha soonka waxaa la arkaa madax xanuun sabab badan ayaa keena madax xanuunkaasi waxaana ka mid ah isbedel ku imaanaya guud ahaanba habnololeedka qofka iyo nidaamka cunto waxaana ka mid ah 1 isbedel ku yimaada xilliga cuntada 2 joojinta kaliska ee cabitaanada kafayga leh sida shaaha iyo bunka gaar ahaan xilliga subaxa 3 dadka balwada sigaar nuugista leh oo marka ay joojiyaan maalintii uu madaxu xanuuno 4 hurdada uu qofku helayo xilliga soonka oo yaraata sababtuna waxa ay tahay cibaadada iyo suxuurta oo habeenkii ah 5 maalinimada soonka ah oo aanay naftu helin nasasho yar oo xilliga duhurka kadib ah 6 biyaha uu habeenkii qofku cabaya haddii ay yaraadaan waxa ay keenaan in engeg uu ku dhaco jirka maalintii 7 sokorta ama heerka macaanka jirka oo hoos u dhaca kadiska ah ee ku imaanaya sokorta dhiigga ayaa sababta madax xanuun daran ugu dambeyn xalka 1 ugu yaraan 10 maalmood oo bisha soonka ah ka hor oo bunka iyo shaaha la joojiyo ama la yareeyo 2 xilliga saxuurta ama 2 saac kadib xilliga afurka oo la cabo koob bun ah ama shaah ah 3 cuntada saxuurta oo noqota mid isku dheelitiran oo leh carbohydrates ku filan jirka 5 haddii aad dhanjaf yar leedahay isku day inaad habeenkii cabto sharaab cinab ah 6 haddii intaasi oo dhan ay xal keeni weyso qofku waa inuu dhakhtar aadaa 7 haddii uu madaxu ku xanuuno waxa aad samayn kartaa in maalin kasta saxuurta kadib aad waqti yar madaxa duubato waliba qaab wareeg ah tusaale ahaan dhafoorka dhinacyada madaxa iyo fooda hore haddii aad ka heshay mowduucan like dheh sidoo kalena la soco mowduucyada kale ee la xiriira soonka sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer gare oo koobi linkiga taabo mahadsanid